kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka ee warbaahinta ogaal qodobada wararka caawa ee warbaahinta ogaal aan ku soo qaadanayna waxa kamid noqon doona dawladda Mareykanka iyo DFT ka hadlay khilaafka Kenya iyo waliba Soomaaliya xilli ay qaramada midoobay la sheegay inay dhexdhexaadinayso arintaasi wasiir ka tirsan dawladda oo la beegsada qarax ka dhacay caawa magaalada Muqdisho Axmed Madoobe ciidamada Itoobiyaanka ah ku sugnaa gudaha magaalada Kismaayo ka saaray iyo cali maadi oo markii ugu horeysay ka jawaabay warbaahinta ogaal media ay ka daabacday kulankii dhex maray isaga iyo waliba madaxweyne Farmaajo iyo waliba waxa wararkaasi ka jira qodobadaas iyo waliba kuwa kale oo xiiso ayaan ku soo qaadanaynaa daawadayaal warka caawa warbaahinta ogaal hadaan ku bilowno dhanka Jubbaland madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa ka raray ciidanka Itoobiyaanka ee ku sugnaa Kismaayo waxa la sheegay in ciidanka Itoobiyaanka uu ka raray garoonka diyaaradaha Kismaayo Gabar Caleen iyo waliba dekedda Kismaayo guud ahaanba ciidankan ayaa waxa loo raray kadib markii la sheegay in Axmed Madoobe ka cabsi qaaday in loo adeegsado dagaal lagu soo gaban karo waxaana ciidanka Itoobiya la sheegay in la dejiyo duleedka jaamacadda Kismaayo waxaana la amray in baabuurta waaweyn aysan Kismaayo la soo gelin oo cabdibiliyaan oo loo ogolaado waxaana kiyaanka ayaana tilmaamay in ay hoggaanka dekedda garoonka diyaaradaha Kismaayo maamulka ah dhinaca amniga guud isla markaasna aysan cid kale soo faragelinaynin Axmed Madoobe ayaa la sheegay in cabsi xooggan ay soo foorsatay maalmihii la soo dhaafay kadib markii dawladdu ku dhawaaqday inay bilaabi doonto doorashada isla markaasna aan waqti badan la sii lumin doonin wixii intaasi ka dambeeyay waxa la sheegay in ammaanka guud ee magaalada Kismaayo la adkeeyay iyadoona arintan uu hadda ku dhaqaaqay tilaabadan la sheegay inay ka mid tahay waxyaabaha uu rabo inuu ku sii adkeysto amniga ee deegaanadaasi gaar ahaan magaalada Kismaayo uu maamulo waxaan Axmed Madoobe uu rabaa inuu isan dhicin doorasho guud ahaanba deegaanada Jubbaland oo isaga ka taliyay markaasna dawladda isan isagu awood ahaan u adeegsan waxaana ciidamada Itoobiyaanka oo muddo deganaa duleedka magaalada Kismaayo iyo gudahaba la sheegay in cabsi xooggan ay ka jirtay kadib markii la sheegay in Abiy Ahmed iyo madaxweyne Farmaajo la sheegay in ay aad isugu soo dhawaanayaan arrimaha ku aadan deegaanada Jubbaland dhowr daqiiqo ka hor qarax ka dhacay noociisa ah kuwa miinada soo booda ayaa ka dhacay isgoolka ceelgaabta ee dekedda Xamar Jajab si gaar ahna goob aan ka fogeyn bar control oo laga galo madaxtooyada Soomaaliya waxaana qaraxaas ayaana waxa la sheegay inuu qaybaha hore ka haleelay gaariga wasiirka beeraha xukuumadda Soomaaliya balse ma aysan gaarin wax khasaare ka badan burbur xoog leh oo gaariga sida ay warbaahinta ogaal media u sheegeen dad goobjoogaal wadada uu ka dhacay qaraxa waa tan kaliya ee sida aadka ay u isticmaalaan mas'uuliyiinta dawladda gaar ahaan madaxweynaha Farmaajo oo dhaqdhaqaaqiisa magaaladu u xadidan tahay ayaana u safro wadadan markii uu ka dhoofayo garoonka magaalada Muqdisho falanqeyn iyo filcilin badan ayaana baraha bulshada ka abuurtay goobta uu caawa ka dhacay qaraxaasi maadaama ay tahay mid aan looga barin aadna loo ilaaliyo ammaanka wadadaasi sida ay sheegayaan qaar ka mid ah saraakiisha amniga ee magaalada Muqdisho dawladda dhexe federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasiirka dibadda ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku sugan dalka Mareykanka ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ku aadan xiisada ka dhex taagan dalalka Soomaaliya iyo waliba Kenya iyo waliba ilaa hadda waxa ka qasoomay kulankii ka dhacay magaalada Djibouti labada dhinac ay isku arkeen Maxamed Cabdirasaaq wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya sidoo kale sheegay in qorshayaasha la kulanka xubno ka tirsan golaha ammaanka qaramada midoobay si uu u gudbiyo ashkatada Soomaaliya iyo waliba Soomaaliyeed waxay ka tabanayaan oo uu qaaxay ku xadgudubka sharafta duleedka Soomaaliyeed ayuu yiri waxa aad uga xunaa buu oo aan rabin in aan Kenya nagu wado faragelino ha noqoto arrimaheena siyaasadeed ama ha noqoto xuduudaheena oo ay ku soo galaan buu yiri ogolaansho la'aan in iyo waliba diyaaradoodu dalkeena iska soo galaan oo ay duqeeyaan dad Soomaaliyeed xoolahoodii waliba hantidooda ayuu yiri wasiirka Maxamed Cabdirasaaq wasiirka ayaana dhanka kala tilmaamay in Soomaaliya ay ka faa'iiday jarista xiriirka Kenya ayna ku heshay dhageysiga wadamada caalamka oo horay u maqlin jirin buu yiri dhibaatada iyaga ka timaada iyo waliba ixtiraam ay u muujiyaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaana bartamihii bishii December 2020 sheegtay inay si rasmi ah xiriirka diblomaasiyadeed ugu jartay dawladda Kenya maalmo kadib markii uu kulmeen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi
wixii intaasi ka dambeeyay waxaa gabi ahaanba istaagay xiriirka labada dowladood iyadoona tan diblomaasiyadeed ee noqotay tan ugu weyn ee saameynta ku yeelata Kenya maadaama Kenyaanku ay aad uga faa'iidaan baa yiri iskaashiga dhanka ganacsiga ay Soomaaliya leeyihiin soo kalena shiran caadi ahayn oo madaxda IGAD 20 December ee sanadkii hore ku yeesheen dalka Djibouti ayaa laga soo saaray qodobo la sheegay in oo dhac u hayeen xalka gaarista khilaafka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya balse ilaa hadda qodobadaasi wax ka suurtoobay ma jiro maadaama dowladdu ay ilaa hadda sheegayso in dacwad ay ka tahay Kenya. ugu dambeyn daawadayaal madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi warbaahinta ogaal midii hore warbixin ku aadan kulanka isaga madaxweyne Farmaajo u daabacday ayaa waxa uu wareysi uu siinayay TV-ga Somali Cable oo uga hadlay arrimahaasi iyo waliba qodobadii aan ku qeexnay kulanka labada dhinac iyo waxyaabaha dhexmaray ayuu ku sheegay in warbixintaasi ay tahay buu yiri mid si toos ah aan loo sheeginin sida aan ognahay oo warbaahinta ogaal midii ay soo ogaatay kulankan oo ahaa mid qarsoon isla markaasna warbaahinta ka qarsoona balse ay noqotay kulan ay labada dhinac yeesheen ayaa waxa looga hadlay arrimaha doorashada Soomaaliya iyo waliba sidoo kale taageerista madaxweyne Farmaajo ka raadinayo beesha Abgaal uu ka soo jeedo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Cali Mahdi ayaa la rumaysan yahay in labada dhinac ay iska afgarteen kadib markii dhaqaale xoogan loo yaboohay sida warbixinta ogaal midii waxa xaqiijiyeen qaar ka mid ah saraakiisha ku sugan Villa Soomaaliya waraysigu caawisi Somali Cable ayuu Cali Mahdi uga hadlay arrimahaas iyo waliba isagoona iska fogeeyay in wax dhaqaale ah uu ka qaato madaxweyne Farmaajo isagoo sheegay in sidoo kale madaxweyne Farmaajo uu ka codsaday inuu la kulmo balse uu sheegay inuu iska diiday kadib markii uu ka warhelay in warbixinta kulankaasi ay noqon karto oo kaliya la yiri in labada dhinac ka wada hadlaan arrimaha ku aadan doorashada Cali Mahdi ayaana sheegay inuusan la kulmi doonin madaxweyne Farmaajo oo uu sheegay in arinta ku aadan doorashada Soomaaliya ay waqtigeeda gabagabo marayso isla markaasna laga doonayo inuu dardar geliyo almaha doorashooyinka balse waxa uu sheegay inuu kulanka labada dhinac ee warbaahinta ogaal midii hore u daabacday uu ka gaabsaday inuu si toos ah arrimahaasi uga jawaabo balse warbaahinta ogaal media sida ay u xaqiijiyeen saraakiil ku sugan Villa Soomaaliya kulankaasi wuxuu ahaa mid qarsoon isla markaasna ay aad loo xadidiyay in ay banaanka u baxdo maadaama uu horey Cali Mahdi uga soo dhex muuqday midowga musharaxiinta Soomaaliyeed isla markaasna meel fagaara ah uga hanjabay madaxweyne Farmaajo oo uu sheegay in uu la soo bixi doono qorigiisa cadda haddii waqtiga uu ka dhamaado madaxweyne Farmaajo isla markaasna uu Villa Soomaaliya si joogo madaxweyne Farmaajo ayaa hadda muddo wax ka yar bil uga harsan tahay madaxweynaadkiisa iyadoona 8 Febraayo ay ku eg tahay kama dambaysta xilkii madaxweynenimo ee Soomaaliya waxaana ilaa hadda la aaminsan yahay waxyaabaha ka soo bixi kara kadib marka uu waxyaabaha ka dhalan kara marka la gaaro 8 Febraayo Cali Mahdi oo su'aashaasi wax laga weydiiyay ayaa sheegay inay noqon doonto xaalad culus isla markaasna dalku uu gali karo buu yiri xaalad disaster isagoo arintaasi ku macneeyay in uu san jiri doonin buu yiri qof maamula Soomaaliya ama markaas madaxweynaha maadaama dadka dhan ay noqonayaan buu yiri kuwa wada siman waxa uu madaxweyne Farmaajo ugu bogaadiyay in 8 Febraayo ka hor uu dardar geliyo si dalkan uu u helo buu yiri hogaamiyo maadaama isaga waqti xilidkiisu uu intaasi ku egyahay.